muwaadin Soomaaliland u dhashay ayaa markii ugu horeysay dalka istagay Imaaraadka Carabta ku tagay baasaboorka ay Soomaaliland gaarka u leedahay waxaanu kaga degay gegada diyaaradaha Dubai markuu halkaasi gaadhin wuxuu ka warbixiyay tareenkiisa iyo sida loogu soo dhaweeyay halkaasi. alxamdulillaah rabbil caalamiin imika waxaan joogaa airportkii Dubai waa la soo dhaweeyay ma sha Allah wax diba oo dib iga soo gaadhay baasaboorkina ma jirto wax kasta si fudud ugu dhamaadeen wuxuu ahaa muctaraf si qurux badan baa lagu soo dhaweeyeen cid buugna muujin ma sha Allah tabarakallah dadkii soo dhaweeyay adeerayaasha iyo falkiina waa kuwan ma sha Allah sidaasan baa lagu soo dhaweeyay Allahu akbar mabruuk Allah ybarik marka hambal bulshada Soomaaliland waxaan leeyahay guul baan gaarnay oo qurux badan weyn waaniga ka sii baxaya albaabkii airportkii baan joogaa albaabkii ugu dambeeyay waaniga ka sii baxaya sadaqdiina waatan Allahu akbar soo duceeya khayr baan rajeynaya ilaahayna gabigiina waxaan nii duceynayaa waxaynu tari doontaa muwaadiniinta reer Soomaaliland inta badan u socdaala dalka istagay Imaaraadka Carabta qadiyada ay Soomaaliland caalamka ka raadinayso. Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.